18 sano jir ayaa isdishay Jamhuuriyo ama nafsadeedaba ka taqalustay kadib markii uu ninkeedu ku qasbay inay marto tijaabo la xiriirta dharka hadi sheegay tijaabo yaalay afka dhaqaaqood laakiin tijaabo la xiriirta dhanka gabarnimada ama fikirnimada markii loo diray inay gabarta marto aad iyo alaga fiiray moolay gabar aad oo weyn gabar dhalin yara ah oo hadda buskuda shukulaatiila ah oo 18 sano jira ayaa aad oo weyn sababtoo ah ninkii ku cusbaa ama saygeedu cusbaa wuxuu diiday inuu gabadhan aaminaba inay tahay bikro matiido le rijaal kurshad ayaa la gabadhaas waxa ay go'aansatay inay qudda iska jarto hey 40 cisho kadib markii arooskeeda la soo qaban qaabiyay ay isbitaal ku dhimatay iyadoo laga soo qaaday meel dambe iyadoo naftu meel dambe ay ka tahay markii hore la soo qaaday Zafar Birov nikla yiraahdo ayaa dalka Pakistan dalka la yiraahdo ayuu Jamhuuriyo gabadhaas markii hore guurkooda lagu qaban qaabiyay Zafar Birov wuxuu yiri gabadhaas 18 sano jirka ah waxa uu u sheegay inay maya 18 sano jirkan ayaa waalidkeed wuxuu u sheegay inay Birov nikla yiraahdo u dooreen si Caliya ugu noqdo waa wiil 24 sano jir ah markii hore wuxuu yiri dhiyo waa inuu ku tijaabiyo tijaabadu waa la maray laba tijaabo dheeraad u diraa radio free Europe ayaa sidaas ugu rinay laba tijaabo dheeraad marka loo diray gabadha saddex tijaabo ee maroos midda labaadna xaaskiisa ma taqaanaa koobaad loo diray xaaskiisa koobaad wuxuu dhahay samay tijaabadan ka soo qaad aad oo weyn gabadha waxay tiri macquul ma wiista la saaray Tajikistan marka la joogo wiistada gabdhaha la marsiyo inta aysan guursan ka hor wax caadi ka yihiin waxaan xusid mudan in xitaa caadiya jaglan iska siiyo dalka xeerka maahan inta aan la isguursan ka hor marka Birov waxa uu sheegay in gabadha waxa lagu eedeeyay in gabadhan uu isagu mas'uulba ka ahaa inay nafsadeeda haligto asaa u diray baashaan wuxuu yiri baaritaan koow ma laba ma saddex ma afar ma waa la iska walaale marka gabadhan iyo saaxiib raashada ka dhaaf hada moogtaa labadoo qalad oo alasii dilo soo iska inshallah binaadamnimo la muujiyo aad weyn marka 8 sano oo xabsiga laga yaabaa ninka inuu wajo miskushad waxa ay saameyay haseexana nalooya aad weyn miskushad gabadha la yiraahdo Jamhuuriyo waxa ay qoyskeeda u sheegtay in cadaadis badan ay kala kulantay aynu xamili weysay cadaadiska maadaama ninkeedu hadda maalin walba shuruud hor la uu ku xiraay waxaana ay sheegtay inay qaadan weysay shuruud cadaadiskaas la xiriira inay marto tijaabooyinka gabarnimada la xiriira gabadhaasuna ay sidaas ku disay Pakistan marka la joogo waxa qasab ah sidaan hore u sheegay in dumarka iyo raguba ay maraan waxa loo yaqaan medical check-ups waa lagu jeegareynaa intaan isguursan ka hor miskushad hadda waa ay dhimatay waxaana xusid mudan in saygeeda la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay inuu ama uu ku riixay in isdisho maadaama uu aamin waayay inay gabadhaan gabar tahay gabar waaye laba tijaabo dheeraad markuu u diray midna hore u marsiiyay midna uu yiri islaanteeda kugu sameynayso wardaagaas macquul ويدش gabadha waa isdisho qaadaweys aaway biro farka hadda waxa lagu soo waramayaa in xamsi 8 sano uu wajihi karo 2 iyo 3 dhageysta ayaan siin doonaa soo dhaw saaxiib hal iyo laba ka dheh